بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستلا فيكتوريا سيمبر قاياش ميل باتشوكتين شيلك سدحات ولا يال دلنيرada la hadla shirka saddexaad la hadla anigu waxaan diidanahay qabyaalada baayqa anigu waxaan diidanahay qabiil iyo quranka laga hadlay maanta waxaanu joognaa hadal uu ku hadlay 9 uu ku hadlay Professor Umar Usman Rabi waa soo sheergaray inaad si fiican u dhageystaan 9 ayuu Professorka Umar Usman Rabi oo nin Samaroon Saciid ah uu 93 ka tagay Jarmalka uu meel walba Yurub ka hadlay isagoo ka xeestay markuu Itoobiya aadayay Cabdi Geelo ma jeerteena iyo Cabdullaahi Daad oo Mareexaana iyo Xirsi Boode oo ma jeerteena oo meel walba maray marka Soomaalinima la doonay wuxuu u bixiyay Soomaaliya way soo kaahaysaa wuxuu yiri 2017 haduu Ilaahay na gaarsiiyo annagoo joogin xataa Soomaali waxa la gaarayaa yiri waqtigii ee lixooxda kala goosan lahaa marka waxa weeyaan nimanka Samaroon waligoodba waxay ahaayeen rag professoriina cilmi leh ay Soomaalinimada ku dheertay marka waxa weeyaan jiilka saddexaad ha fadareenina jiilka saddexaad ha haleenina nimankan ma jeerteen iyo Mareexaan ma jeerteen waa talent aqliye leh dhigta waxa weeyaan doofarma daahiro qabiil ayagana rogay maanta markaan ka soo hadlay wixii Soomaaliya ka dhacay iyo Mareexaan wuxuu ahaan jiray aniga been kama sheegin taariikhda qoris waxaan xasuustaa dawladii Maxamed Siyaad Bare markay timid Mareexaanku wasiir khaarijiyaha haddaan soo qaato Cabdiraxmaan Jaacbare oo wuxuu meeshan daafeed dhahan wuxuu ka ahaan jiray macallin waa macallin yar waxa basiid ah Cabdiraxmaan Jaacbare waa la soo qaaday Maxamed Siyaad Bare la dhashay iskooyin waxa laga dhigay wasiir khaarijiye farfaalo xiranay uu tumanay ka dilaag buu Muqdisho ku wadanay fasaadku ugu weynaa Cabdi Xoosho darawala milyaneer buu noqdo wax walba la siiyo facility la siiyo alxaaji guleed waa garanayna oo tumasho guri maftaala lahaa oo maslax iyo qof walba fariisto haddaan ka soo hadlo Mareexaan maanta dhan ma dhameyn karo waa Bolsonaro waa qurun waa gudaafad waa wax walba mid kale Ilaahay wuxuu yiri azani warzani yabshir bil faqr marka waxa Soomaali baabi'iyay ma ha jabhado waa zinada ay sinaysanayeen nimanka Mareexaan maareeyash ah ki heestay ceemiska ki heestay Soomaaliland ki meel walba joogay wasaaradaha joog ayaa ku tumanayay wadanko galay waa la soo bariyay si saada sheegtay Land Cruiser ay gadanayay taaban ka hadlay marka waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo dardaarankii uu ku dardaarmay Professor Umar Usman Rabi maanta waa la taagay 9 wuxuu yiri waxa la arki 2017 Soomaali lixooxda kala goosanaysa ani ma oran waan soo sheergalay waad aragteen insha Allah marxuumka Allah u naxariisto jannatul firdaws aan oranayna rag badan oo xigmad leh ayaa jiro jiilka saddexaad ina baratiina doonayna Professor Rabi wuxuu ahaa la taliyaha madaxweynaha Djibouti howlo badan uu soo qabtay wuxuu ahaa nin siyaasi baaris oo mucaarad ah oo Soomaaliya intaas oo sano u dagaalamay u hadlay maanta waa la gaaray dardaarankii Ilaahay ku guuleystaan naga dhigo waxaan halka salaamaya saaxiibkay Faisal Xadiyan salaamaya rag badan oo waxa jiro talent ah aan isku duubano aan wax wada qabsanaa Hastala Victoria Sempre Gashi ma salaam